Assalaamu calaykum waraxmatullah. Rwanda taariikh mugdi ah iyo mustaqbal ifaayo. Soomaalidu waxay aaminsan tahay qabyaaladu inay tahay waxyaabaha ka hortaagan wadankooda inuu horumar gaaro ayna ka horumariyaan wax walba qabyaalada. Hadda maanta waxaan ku hayaa tusaale wanaagsan oo aad ku qanci karto aadna ku aamini karto in laga gudbi karo qabyaalad loona gudbi karo qaran. Ku soo dhawaada mowduuca aan uga hadlayno arrimahaas oo dhan. Rwanda waxaa wada dego laba qabiil oo walaalaha oo lagu kala magacaabo Hutu iyo Tutsi. Hutudu waa dadka ugu tirada badan ee wadankaas dega. Sidaan wada ognahay wadanka Rwanda waxaa soo wada maray laba gumaystayaal oo kala ah Jarmalka iyo Belgiumka. Belgiumka ayaana ahaa kii ugu dambeeyay ee wadanka ka baxa. Belgiumka ayaa markuu wadanka ka baxayay waxa uu awood ku wareejiyay Hutuda ugu tirada badan ee wadankaas. Hutuda marka ay la wareegeen awoodii wadanka waxay bilaabeen inay gumaadaan Tutsiga laga tirada badan yahay. Hutudu waxay geysteen xasuuqan weli laga arag adduunka. Dadka ayaa waxaa loo qalayay raxan. Xasuuqa ayaa bilowday 1994. Isla saacado gudahood ayaana la laayay dad tiradooda ay kor u dhaafayso 800,000 oo qof. Meydadka ayaa wadooyinka dhoobnaa sidii waraabe meel cidla ku helay ari. Sidoo kale uma aysan naxariisan caruurta iyo dadka maatada ah. Dadka boqol ayaa loo aasayay magaalooyinka ur lama mari karin. Dadkii deganaa Rwanda ee ka soo jeeday qabiilka Tutsiga ayaa noqday kuwa naftooda waaya iyo kuwa wadanka isaga qaxa. Sidoo kale Hutudu waxay ahaayeen dadka ugu tirada yar ee wadankaas. Haddaba isweydii wadan xaaladiisu ay sidaas tahay sidoo noqon doonaa wadan xaalkiisu sidaan yahay ay dadkiisa isku qalayaan raxan qabiil dartiisa. 6 sano kadib Rwanda wadankooda sidaan ayuu isku bedelay. sanadka markuu ahaa 2000 waxaa wadanka hoggaanka u qabtay oo madaxweyne ka noqday wiil 20 jir ah oo lagu magacaabo Paul Kagame. Kagame waxa uu walaalayay qabaa'ilkii malaayiinta qof iska dishay. Sidoo kale Kagame ayaa wadanka ka bilaabay inuu uga yeero shirkado maalgashi sida beeraha, dhismaha iyo macdanta. Sidoo kale Kagame waxa uu hirgeliyay waxbarasho iyo shaqo abuur. Waxa uu u sheegay muwaadiniinta Rwandeeska inay wadankooda ka soo saartaan wixii ay cuni lahaayeen kuna noolaan lahaayeen. Rwanda sidoo kale waxay ka faa'iideysatay kheyraadkeeda sida bunka, kafeega iyo caleenta shaaha. Waxaan ognahay wadankaas inuu si aad u qani ugu yahay kafeega ama bunka. Rwanda ayaa sanadkii dhoofisa 1 bilyan oo caleenta ama bunka ah. Sidoo kale waxay dhoofisaa caleenta shaaha. Sidoo kale Rwanda ayaa waxay u soo dalxiis tago reer galbeed fara badan. Sanadkan 2017 waxay dalxiiska ka heshay Rwanda 444 milyan oo dollar. Magaalada Kigali ee caasimadda u ah dalkaas Rwanda waa magaalada ugu nadaafadda badan magaalooyinka Afrika oo dhan. Wadooyinka, eelboorada waana magaalada 23 sano ka hor ay yaaleen meedadka badan 1 milyan oo qof. Rwanda waa wadanka 13aad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika. Rwanda waxay tusaale u tahay wadanka inuu ka gudbi karo qabiil lana horumari karo. Ma ahan wadan Yurub ah, waa wadan Afrikaan oo sidoo kale ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.